kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan dhagaystayaasheena qiimaha lahow waa 7 bisha Agoosto sanada 2016 kuna soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka isboortiska oo si wada jira idinku daadihinayaan Luul Shaalu iyo anigoo Cabdiqaadir Boosa ka bogasho wacan insha Allah. kaftanka isboortiska waa kulanka dhalinta maanta ha iskarinin dhiigo kurbayuusan kugu ridin kelmadaheena qosolka kuleelqa saxa u arag. barnaamijka kaftanka isboortiska waa barnaamij ahadla wuxuu soo galaa 7 fiidnimo saacada geeska Afrika. kabtanka xulka qaranka Xasan Sheekh ayaa ku qancinaya kabtanada kooxaha Puntland iyo Jubaland in waqti loogu daro ciyaartan 90 minad ku istaagsan. duqan xasaskiisa boos joogta ah ka siista xulka ayaana jeclaan lahaa in 6 minad oo dheeraad ah la siiyo si uu guulo muuqdo u gaaro. dhanka kale xidiga Cabdikariim Guuleed ayaa ka maqnaa kulanka maadaama qalin wadnaha loogu qaaday Hindiya. dhaqaatiirtiisa ayaana uga digaya madaalaha reer Galinsoor inuusan dhameysan kulamadiisa kana fogaado xamaasada kulamada darbiga sida kan Puntland oo kale. xulka qaranka Itoobiya ayaa u muuqda mid aan ka soo qayb gali doonin tartamada Champions League Africa taas oo fursad weyn siinaysa xulkeena qaranka Soomaaliya. taageerayaal careysan oo aaminsan in kooxda Tigreegu laaluush ku hanteen horyaalkii 26 sano ugu dambeeyay ku guuleysanayeen ayaa dab qabadsiiyay gudaha dhowr garoon oo caalami ah. xulkan hormuudka uu ahaa in dhalinteenu boos joogta ah ka helaan horyaalka badda halka kuwa qaarna faraka ciyaar ku raadiyaan jannada ayaa u muuqda mid ku soo dhawaanaya tartankan aan 27 sano ugu dambeysay dhex muquuranaynay inkastoo bahdayada isboortiska jeclaan lahayn nabad waarta haddana kama nixi doona in kaalinta dalkeena uu jooga iyana soo tiigsadaan. kaamirada ayaa dib loo celiyay markii taageerayaasha xulka ay dalbadeen in lafdhabarka qaranka Cabdisalaan hadliye balse ay yara u arkaan taagal mamnuuc oo laacibkan ku mudan karay kaarka casaanka. xidigan isagoo da ah kamid ah safka macalin qoslaya ayaana ka walwalsan in loo soo bandhigo isagoo dhaawac u geysanaya xidig Soomaaliyeed taas oo laga yaabo in garoomada ay ka maqnaato 9 bilood. qubrada qaar ayaana ku doodaysa in fadeexadan ay soo gabagabeyn doonto kasii mid ahaanshihiisa xulka qaranka. naadiga faca weyn ee reer Hiiraan ayaa wali ka biyo diidan ka qaybgalka tartanka Federal Cup-ka Soomaaliya. kooxdan jicibta isticmaasha aalmiitada ka hor ayaana ku doodaysa in tiimkooda loo qeybiyo 2 koox taasoon qayb ka ahayn dastuurka isboortiska qaranka sida ay qabaan saraakiisha isboortiska ee Damajdiid. sidoo kale ciyaartooyda reer Hiiraan ayaa isku raacay in kooxda heerka koowaad laga saaro goolyahooda heerka caalamiga ee Dabageed iyagoona uga shakisan in la laaluushay. geesta kalena kabtanka Damajdiid ayaa uga digay kooxdan ku tababarata Beledweyne in bedel ay u isticmaalaan Nicholas Kay ciyaartan la isku mari laayahay 90 minad. كيسرادو الحجيدي سعوتا مسمسم بقى معنا مسمسم بقى معنا taageerayaasha Soomaalida ayaa Twitter-ka ku jahjahay xidiga Cabdiraxmaan Ukraine kaasoo isku dagiisa bilisyonada aaminsan inuu la heeryahay xidiga reer Djibouti Cawalaadan. xidigan aan lahayn cid ceshato ayaana qarash badan ku bixinaya sidii ciyaaraha fanka darajo weyn ugu gaari lahaa xilli uu durbahantay biladaha laacibka ugu geysan fanka uguna adkeysan og aflagaadada taageerayaasha. biladan oo 2 sano ee ugu dambeysay uu iska haystay laacibka Cumar Shooli. warar hoose ayaana sheegaya in Xasan Cabdiqaadir Muudoy uu yahay tababaraha xidigan maadaama luqadiisa dadku ku qoslaan marka xitaa uu caadi kugu sheekaynayo ciyaarihiisa kadib. dabad wadan gaalo ka timi oo halka waxay ka soo baratay rabta inna ilaa akhlaaqda iyo diinta ku falsaadiso oo lacag ay ka qaadato dadku madalan ka dhintay. kooxda culimadiinka Garowe ayaa ka dhawaajiyay in ay baajin doonaan bandhig lagu wado in magaaladaasi ay ka sameyso xidigta caanka baxda ee Nasteexa Indo. fanaanadan kaamirada ka qabata inta hore ayaana u muuqata mid ku fashilantay safarkii Garowe walow soo dhaweyn heer sare loo sameeyay. sidoo kale xidiga DJ Subeer ayaa ku fashilmay in dadku ay gartaan magaciisa. isticmaalka Snapchat-ka oo ku yar deegaankaasi ayaana sabab u ahaa in joogdheerahaasi isku haysta xidig caan ah dadku u maleeyaan curadka Nasteexa Indo oo dhaqan celis dib loogu soo celiyay dalka.
kaabaha dahabka saxaafadda Cabdimaalig Codon ayaa abaabulay kulan tabaaruca oo sadaqo lagu aruurinayay dadka dhimirka la shaashada isboortiska ayayna ka soo muuqday wasiiruhu ka mid yahay odawaha kuwaas oo ka qayb qaadanaya tartanka kaalme kuwan xidigan aan isnaashnaashin ayaana heesta kaabaha dahabka ee taageerayaasha isagoona sanadan mar kale kusii saqaya hanasadeeda maadaama xilli uusan jirin shakhsi la baratami karo laacibka daaribistal oo fiyuuskiisa gaaray heerkii ugu liitay abid ayaana isku daya inuu propaganda uu ka sameeyo halyeeygan reer burco walow shacabku ay ka dhagsan yihiin xogta xidigaas maalinkii xitaa ku qarwo maareeye markan u diyaar garooba xubintani baafinta waxaa la baafinayaa xidiga reer USA Maxamed Barastimo markii cid ugu wardambeysana wuxuu xirnaa shaatishaal ragaadii garbasaar ka risa haddaba cid alaaliya cid aragta laacibkaasi jecel in dharka dumarka majaajulo ku sameeyo waxaa laga codsanayaa in dhaqan cilis u geeyaan xarunteena Garbahaarey haddii uu qolkiisa ka soo bixi waayana waxaad daaqada ka tusi kartaa bacweyne haatan socdo una sheeg in video ka duubi doonto isaga banaanka orod ugu soo bixi doonee sanadka dambe waxaan waxaa la baafinayaa xidiga kooxda shabaab Cali Dheere markii cid ugu wardambeysana wuxuu guul u haystay guul daradii 5 iyo eber kooxdiisa ka soo gaartay Puntland haddaba cid allaalay cidii aragtay wadaadkaasi aan naftiisa u quurin qaraxa waxaa laga codsanayaa in wada hadal rikoor jabin ah ay kala soo wareegaan kooxda shabaab haddii qiimahaasi uu warbaahinta kaga soo muuqan waayana waxaad taayir ku hor banjarin kartaan agagaarka xarunta xalane isaga mahad ilaah muuqiisa ku soo bilaabi doone intaas ayaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni kaftanka isboortiska galabtana barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya luul shaaluuy anigoo cabdiqaadir boos barta aan ku leenahay Facebook ayaadna ka daalacanaysiin halku dhigeennu waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa waa bahda barnaamijka oo isku duuban oo idin la gaashaankiina noolama keena dooqa dhegaystuuna waa Ayub Abdidon from Germany iyo dalabkii heestii caadi bay iska dhigayaa dayaxdan nuurshe ila daawo